Maanta waxaan doonayaa halkaa inaan kugu soo gudbiyo macluumaad ku saabsan waddanka Jabbaan. Waddan lagu dhuftay laba nuclear, waddan aanan niyad jabin, waddan shacabkiisu dhexda u xirteen horumarkiisa. 1945tii wuxuu Mareykanku ku garaacay magaalada Hiroshima bam nuclear ah. Kaasi waa kii koowaad ee lagu dhuftay dalkaasi Jabbaan. Maalmo kadibna waxaa lagu dhuftay bam kale, waxaana soo tuuray bamkaas Mareykanka. Ugu yaraan 70,000 oo qof ayaa durbadiiba ku dhintay weerarkaasi, halka tiro intaa la mid ah ay markii dambe u dhinteen shucaaca sunta ah ee ka dhashay bamkaasi nuclear-ka. Magaalada Hiroshima waxaa ku dhintay in ka badan 140,000 oo ruux. Dalka Jabbaan wuxuu sheegayaa inay ka soo kabteen dhacdadaasi, laakiin dadkii ka badbaaday dhacdadaasi waxay sheegayaan inay ahayd taariikh madow ee baalka madow u gashay waddanka Jabbaan. Ciidamada Mareykanka ayaa atomic ban nuclear ah ku riday magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Jabbaan maalinimo Isniin ah. Maalinta koowaad waxay ahayd 6 bishii Agoosto, maalinta labaadna waxay ahayd 9 Agoosto ee 1945. Labada bam waxaa la kala dhihi jiray Little Boy iyo Fat Man, waxaana ku nafwaayay in ka badan 120,000 oo ruux. Tiro intaa ka badanna waxay ku waxyeelowday shucaaca nuclear-ka. Toddobaad kadib bamkaas, Jabbaan waa isdhiibtay. Dagaalkii labaad ee dunidana halkaas ayuu ku soo gabagaboobay. Intaasi waxay ahayd qaybtii ku saabsanayd nuclear-kii lagu dhuftay waddankaasi Jabbaan. Balse hadda ku soo dhawaada macluumaad yar oo ku saabsan waddanka Jabbaan. Jabbaan waa dal jasiirad ah kaasoo dhaca bariga fog ee qaaradda Asia. Jabbaan waxay ka kooban tahay 6,852 jasiiradood, waxaana ugu waaweyn 4 jasiiradood oo kala ah Jasiiradda Honshu, Jasiiradda Hokkaido, Jasiiradda Kyushu iyo Jasiiradda Shikoku. Baaxadka dhulka Jabbaan waa 377,000 oo kiiloomitir wareeg ah. Soomaaliya ayaana ka weyn ku dhowaad 2 jeer. Tirada guud ee dadka waa 127 milyan oo qof, waana dalka tobanaad ee ugu dadka badan dunida. Micnaha magaca Jabbaan waa dhulkii qorax ka soo baxa, kaasoo dhaca badda fog ee Basifiga. Jabbaan waa dal aad u horumaray dhaqaale ahaan, xagga nolosha bini'aadamka, aqoon ahaan iyo dad ahaanba. Jabbaan waxay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida. Sidoo kale waxay qayb ka tahay 7 dal ee ugu warshadaha iyo wax soo saarka badan dunida. G7 iyo G20 iyo ururo dhaqaale oo badan ayay ku jirtaa waddanka Jabbaan. Jabbaan waa dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, kaliya waxaa ka horeeya Mareykanka iyo China. Dhaqaalaha guud ee dalka Jabbaan waa 5.1 trillion, waana dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Sidoo kale Jabbaan waxay ka dhaqaale badan tahay ku dhowaad 2 jeer in ka badan qaaradda Afrika. Sidoo kale Jabbaan waxay 2 jeer ka dhaqaale badan tahay UK iyo France oo ka mid ah isla ururka G7 iyo G8. Dakhli sanadeedka soo gala qofka Jabbaaniiska ah waa 44,000 sanadkii. Qiimeynta horumarka aadanaha HDI, Jabbaan waa dalka 17aad. Jabbaan waxay leedahay shirkado badan oo ganacsi sida Toyota, Suzuki, Sony, Panasonic iyo shirkado kale oo badan. Jabbaan waa dalka afraad ee ugu soo degsashada badan dunida, sidoo kalena waa dalka afraad ee ugu dhoofinta badan dunida. Jabbaan waa dalka saddexaad ee ugu badan ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda. Sidoo kale Jabbaan waxay leedahay shirkadda ugu weyn dunida ee soo saarta baabuurta iyo qalabkooda, waana shirkadda Toyota. Jabbaan waxaa ku yaal in ka badan 2,000 oo warshadood, kuwaas oo qayb weyn ka qaata wax soo saarka dalka. Dalku waxa uu leeyahay boqortooyo la sharfo, ra'iisul wasaaruhuna waa hogaamiyaha dalka. Jabbaan waxay ka mid tahay dalalka ugu dalxiiska badan dunida. Sanadkii 2016 waxaa soo booqday 24 milyan oo dalxiisayaal ah. Sanadka 2020kana waxaa la rajaynayaa inay gaadho 50 milyan oo qof. Waddanka waxaa ku yaal 26 goobood oo qadiimi ah, kuwaasi oo u diiwaan gashan hay'adda UNESCO ee World Heritage. Caasimadda waddanka waa Tokyo, taasoo ah magaalada ugu dadka badan dalka. Sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan dunida, waxaana ku nool magaaladaas iyo nawaaxigeeda 38 milyan oo qof.
Bal ila daawo wax yar muuqaalka magaalada caasimadda Tokyo ee waddanka Japan. Magaalooyinka kale ee dalka waxaa ka mid ah Yokohama, Osaka, Nagoya iyo Sapporo. Japan waxay leedahay militariga sagaalaad ee ugu xooggan dunida, sidoo kale waa dalka sideedaad ee lacagta ugu badan ku qarash gareeya ciidamadiisa. Halkaas ayay noogu eg tahay macluumaadka ku saabsanaa waddanka Japan. Waxaan filayaa inaad wax ka fahantay taariikhda waddanka Japan iyo nuclear-kii lagu dhuftay 1945. Walaal, haddii aad horey ugu soo biirin channel-ka, fadlan hadda ku soo biir. Subscribe dheh, gambaleelka button-kana furo. Waana mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.